إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي سبحانه وتعالى وحن ربرينا آبهي إيو سلطان محمود حمد الله إيو دكتور آدم وأنا سيقال صاحب وحي إن إلهي سبحانه وتعالى لما أنتو وكتابكم بيمين تكسيو إلهي سبحانه وتعالى وجنة الفردوس وكون من نيستو أيان إلهي وقبرينا انت عمرك اللي مادو waxaan jeclahay inaan ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo guddigii uu saaray ee madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha ka ahaa iyo acdaadii wasiirada ka tirsanaa guddiga iyo gudoomiyihii Marwada Jeex iyo meeyarka magaalada. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa gudoomiye Baashi oo runtii saaxiib iyo ehel baanu nahay, isagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa kelimaadkii dayibka ahaa iyo sidaa uu sheegay in lasi saamaxo. waxaan jeclahay inaan dhammaan dadka shacabka reer Hargeysa iyo reer Somaliland intaba aan u mahadnaqa ka soo qayb galay aaskan ka soo qayb galay isu soo xilqaamay ilaa saakase markii salaadii subax laga soo baxay heeganka ahaa aad baan ka mahad celinayaa. waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo ciidamada amniga, hadday yihiin ciidanka militariga, hadday yihiin ciidanka booliska, hadday yihiin traafikada, intooduba dhammaantood waxaan jeclahay inaan halkan iyagana uga mahad celiyo sugidda amniga iyo sidoo kale inay ka qayb qaateen oo runtii door facaala ay ka qaateen. waxaan jeclahay oo kale inaan u mahad celiyo guddiga doorashooyinka oo iyadoo maanta loo ballansanaa in la bilaabo launchingkii inay dib u dhigeen. aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa, idinkana inaad nagu ixtiraamteen. ilaahay subxaana wa tacaala idinkana idinka jazaa'isiiyo. dhammaan saxaafadda iyo cid kasta oo ka qayb qaadatayba waxaan leenahay ilaahay idinka jazaa'isiiyo, jazaakum allahu khayran. aniga aabbahay aabba keligay muu ahayn, laakiin waxaan ahayn saaxiib. marka runtii maalintu xanuunsaday ilaa maanta aniga saaxiibkay ayaa runtii iga maqnaa oo maan helin fursaddii aan jeclaan lahaa inaan 16 sanada ugu dambeysay aan helo. waxaan xasuustaa maalintii uu ka sheekeeyey madaxweynuhu markii lagu xukumay keligay baa joogay oo maxkamadda badbaadada markaa ku sugnaa. waxaa iyaguna ila joogay xaaskii Cabdi Ismaaciil Duse, Maxamed Aadan Dhancadde, ina Maxamed Halac oo Axmed Maxamed Halac walaashii Leyla. intaas ayaa ila joogay markii lagu dhawaaqay, cid kale may joogin. waxay ahayd runtii mandar aad u xun. waxaana la yaabla waxay 7 February 1988 markii aan ka soo baxay aan u imid awowgii Allah yarxamo Jirdo Xuseen iyo gurigii aan imid carruurteedii yareedaydoo iyagoo yani hoos u ooyaya aan u sheegi kari waayay in aabahood uu maxaa la yidhaahdaa dilka lagu xukumay. dilka lagu xukumayna waxay ahayd dil aan wax kale laguma xukumin. maxaad yani aad isu hortaagtay sidaa uu madaxweynuhu sheegay ayay ahayd. alxamdulilah rabb alcaalamiin. maanta iyo maalintii waa 2 maalmood oo aad u kala duwan. maanta waxaa aniga farxad ii ah inaan carruurtii aan walaalahayna ay joogaan oo barbarkiisa taagnaayeen ilaa maalintii uu xanuunsaday ilaa maanta, oo ay iyagu runtii ahaayeen dadkii maxaa la yidhaahdaa hayey socday. maalintaa iyo maantana 2 maalmood oo aad u kala duwan bay. marka ilaahay subxaana wa tacaala isagana ha u naxariisto, annagana runtii aabbo wanaagsan, walaal wanaagsan, wuxuu ahaa baari, wuxuu ahaa zawj wanaagsan, wuxuu ahaa saaxiib wanaagsan, wuxuu ahaa macallin wanaagsan, tarbiyad wanaagsan leh
ayuu ahaa oo dadka ay u wada siman yihiin. marka annagana waxaa naga baxay qofka caynkaasaa naga baxay. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu qalbigayga adkeeyo. dadka soomaalidana meel kastoo joogaan waa usoo wada ducaynayeen. ilaahay subxaana wa tacaala ducadiina allah idinka wada qabalo. waana ku mahadsantihiin. jazaakum allahu khayra.